maalinta afraad shaydaanka oo jaraba ciise masiix duubanaha sayid ciise masiix markuu 30 sano gaaray ayuu hawshiisa bilaabay. markii lagu biidaahiriyey wuxuu ku soo laabtay webiga Urdun isagoo uu ruuxa quduuska u hibiyey una hoggaamiyey meel bannaan. 40 maalmood ayuu ibliiska jarribay, waxbana muusan cunin. codka ibliiska wuxuu ku yidhi sayid ciise, haddii adigu wiilka Ilaah tahay, dhagaxan u beddel kibis. way qoran tahay in dadka kibis keliya u noolaan si ereyga Ilaah ku noolaadaan. kadib ibliiskii ayaa sayid ciise kor u qaaday, wuxuuna tusay boqortooyinkii dunida oo dhan, kuna yidhi, waa adiga kan aan siinayo weynaanta iyo taajirnimada dunida oo dhan. aniga ayaa la ii wadi siiyey inaan kii aan raba aan siiyo. haddii aniga aad i caabudid, boqortooyada dunida oo dhan adigaan ku siinayaa. way qoran tahay in rabbiga Ilaah oo keliya la caabudo oo isaga la adeeco. kadib ibliiska ayaa sayid ciise u qaaday Yerusalem, halka ugu sarraysa ee macbuudka ayuu saaray, kuna yidhi, haddii wiilka Ilaah tahay, halkan iska tuur. maxaa yeelay way qoran tahay, malaa'igtiisana ku amri doonaa inay adiga ku dhowraan oo ay kuu sacabahooriyaan, cagtaadan dhagax gaarin. way qoran tahay inaadan rabbiga Ilaaha ah jiriba karin. kow maxay ahaayeen saddexda nooc ee jaribaadda 2 sidee buu ciise masiix uga jawaabay jaribaad walba 3 sidee baa aniga la ii jaribaa